xafladda munaasabadda looga dhawaaqayo ururka mideynta iyo samata bixinta galmudug ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug garabka uu hogaamiyo madaxweyne maxamuud cabdi cilmi iyo qaybaha bulshada magaalada Gaalkacyo furitaanka xafladda ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mideynta iyo samata bixinta galmudug Nuur Xasan Xuseen Nuur Ganay isagoo faahfaahiyay ujeedooyinka loo ukay ururkan cusub waxaan sheegayaa dhamaantii oo ku raacsantii sida shirka ka soo qayb oo la soo ajiibtay rag iyo dumar cid kasta oo ka soo qayb shirka ganacsatada odayaasha dalweynaha dhammaan xalwa ku raacsantii waxaan sheegayaa waa halkan in lagu cadeynayo bayaanka arkaysa oo ku qoran boorarka inay jirto ururka samata bixintu inuu la midoobay oo ay ka dhaxayso awoodda lagu maamulo dalka iyo diinta intaba in dowladda galmudug garabka uu hogaaminayay madaxweynuhu maxamuud cabdi in aanu ku heshiinay oo kala saxeexnay wakiiladiisa sida aan soo rabay kow siyaasadda amniga dhaqaalaha gobolka inaan ku heshiinay ayaa marka ka cadeynaya sidoo kale wasiirro ka tirsan xukuumadda madaxweyne maxamuud cabdi cilmi oo ayaguna halkaas ka hadlay ayaa sheegay inay ururka mideynta iyo samata bixinta galmudug u rajeynayaan inuu wax weyn ka bedelo xaaladaha ammaan ee deegaanada galmudug Roble Maxamed Dirir Home Cable TV Gaalkacyo